maareeyaha guud ee kaydka shidaalka Soomaaliland Saleebaan Saciid Cali oo maalmihii ugu dambeeyay safar shaqo ku joogay wadankani Kenya ayaa waxa uu ka warbixiyay howlo shaqo u yimid waxyaabihii uga qabsoomay isagoo socdaal indhayn ku tagay laab ku yaala magaalo xebeedka Mombasa ayadoo la doonayay in laabkaasi laga hirgeliyo magaalada Berbera si loo ogaado tayada shidaalka la Kenya Soomaaliland haddaba waa kan isagoo ka warbixinaya safarkaygan aanu nimi aniga iyo gudoomiyaha guddida shirkadda Soomaaliland Ismaaciil waxa safar aanu ku nimi Nairobi ayna soo invite garaysay kambaniga gacanta ku haya laabka Mombasa waxaana noo nimi sidii aanu laab casriya ugu sameyn lahayn Soomaaliland khaasatan terminalka Berbera sidii aanu control lahayn quality-ga product-tiga inoo imanaya Soomaaliland marka runtii waxa noo qabsoomay sida aad arkaysaan sawirada ka arkaysaan waanu tagnay laabkii waa soo marnay shirkadina aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hirgelinna waa isla qaadanay inay shaqadaasi noo qabsoonto waliba si dhaqso noogu qabsoonto wixii kale agreement-ina waxa nooga dhici doona insha Allah Hargeysa oo isugu wada tagi doono annaga iyo wasiirka ganacsiga iyo kambaniga laabka sameynaya runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkadaha oo runtii arinta dhiirigelin iyo talaba ku lahaa oo arinta igu dhiirigeliyay inaan laabka xilliga bilaabo waxa kale oo aan mashaariic badan oo wuxuu ka mid yahay mashaariicda noo qabsoomeysa sanadkan ayuu ku jira laabku waana mashaariic badan oo haday capacity-ga la kordhinayo hore aan uga hadalay wadooyinka gaadiidka casriga ee ka yaalo imika iyaguna u soo degay terminalka haday tay xagga motorada iyo hijinada oo wax ka bedelano iyaguna ay yaalaan haday tay capacity building loo sameeyo shaqaalaha marka waxa soo dhameeyay waa adeegyada aanu hadda ugu talagalay inaanu terminalka ku kordhino ku casriyeeno annagoo xaqiijinayna hamiga iyo higsiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ka leeyahay terminalku sidii uu noqon lahaa ula markaa jaan qaadi lahaa terminalada internationalka ah maareeyaha ayaa sidoo kale carabka ku ruftay in xukuumadda Soomaaliland ay maamusho hamaha kaydka Soomaaliland dawladdu marnaba aan hamigeeda ku jirin terminalkaas inuu gacanteeda ka baxo inay iyada maamusho iyada gacanta ku haysa iyadana gacanta ku hayn doonta marka terminalku mid gacanta dawladda ka baxayana ma noqon doono dawladana gacanta ku hayn doonta insha Allah say uga hayso Abdi Aziz Ibrahim Aldere on Cable TV magaalada Nairobi.